munaasabadan oo xilka ku wareejinayay gudoomiyihii hore degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe Cumar Maxamed Cumar isla markaana uu ku wareejiyay gudoomiyaha cusub ee degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Xuseen Axmed Shiidka taasi oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya wasiiro iyo xildhibaano kamid ah maamul goboleedyada dalka odayaasha culimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Warshiiq iyo deegaanada hoos yimaada ayaa lagu qabtay xarunta degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe Qaasim Cali Nuur oo ka hadlay munaasabada ayaa kula dardaarmay gudoomiyaha cusub ee xilka loo magacaabay inuu ka shaqeeyo dardargelinta horumarka degmada Warshiiq Warshiiq waxa haysateen fursad aysan haysanin degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe waa inaad ka faa'iideysataan maxaa yeelay waa degmada kaliya ee Shabeellaha Dhexe ka madax bannaan cadawga nabadiidka aysan darafka joogin waa degmada kaliya ee haysata maanta inay dib u dhis samayso gudoomiyihii hore degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe Cumar Maxamed Cumar ayaa ka hadlay howlihii uu qabsoomay muddadii uu ka shaqeynayay degmadaasi in maanta aan joogno anigoo soo marna duruufaha faraha badan ogtiin inaan isbedelno aan joognaa waxaan oo bilaaban reer dawladeed iyo system dawladeed ayaan cagta ku haynaa gudoomiyaha cusub ee degmada Warshiiq gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Xuseen Axmed Shiidka ayaa sheegay inuu ka shaqeyn doono horumarka degmada iyo sidii loo hormarin lahaa adeegyada aasaasiga ay u baahan yihiin bulshada Soomaaliyeed ee ku nool degmada Warshiiq runtii degmada Warshiiq waa degmo qadiimi ah oo facaweyn waqti meeshii loo baahnayna maanta ma joogto laakiin degmooyin fara badan oo magacaabistii ka hor qaatay ayay maanta ka horeysaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Maydhe Makaraan Axmed Faal ayaa kula dardaarmay gudoomiyaha cusub inuu hormariyo adeegyada ay u baahan yihiin bulshada degmada Warshiiq iyo degmooyinka ka dambeeyo waxaana dadkeena ganacsatada oo degmada Warshiiq markaan ka soo qaadno u dhashay oo hantida leh oo wax kasta oo maartay wax lagu qaban karo maanta haysto waxa laga yaabaa inay deegaanka ay degan tahay walaashiis ama hooyadiis inay degan tahay laga yaabaa hadday xanuunsatana wadada aragni la marsiihayo ayagana waxay garalaayeen inay deegaanka ay ka soo jeedaan inta u soo noqdaan xildhibaan Cabdulqaadir Carabow Nuur oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo senator Samsam Daahir Maxamed oo kamid ah aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa kula dardaarmay gudoomiyaha cusub in uu ka shaqeeyo horumarka degmada iyo sidii loo dhisi lahaa wadada isku xirta Muqdisho iyo Warshiiq oo bacaad fadhiyo gudoomiyaha Cumar aadano mataqaana soo dhawow sidoo ku dhimeena soo dhawow heerir Shabeellaha tahay waa ku baahan yihiin dalkan iyo dadkan meesha wax ka qabanayna inaad ka qabato gudoomiyaha Shiidkana aan ku dhaano Axmed Xuseen korneelka soo dhawow mar labaad dadka ay ku jecel aad u timid waan u mahadcelinaynaa degmadan waxay u baahan tahay istaraatiijiyadeeda dhismo in la saxo waxaa meeshan ka cad oo annaga noo cadaatay degmada waqtiyada soo socda in ay dhismo ka bilaabanayo inuu horumarka bilaabanayo inay sidii boos maxaa dhahayay oo basiid ay u dhisanto waan kaaga digaynaa gudoomiye waana kaa codsanaynaa Muuse Cusmaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed